dhammaan waa salaamahayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin. waxaan rabay fiidiyogan waa fiidiyogii koobaad oo aan duubo. wax badan ba igu qaadatay inaan go'aansado inaan fiidiyo soo geliyo aniga oo awooday sanadooyin badan baan ku fakarayay. waxaan rabaa waxyaalo badan oo bulshada ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan faa'iido u leh inaan soo gudbiyo aniga ahaan ra'yigayga sidaan wax u arko iyo si ila muuqato yaan rabaa inaan ummadda u soo gudbiyo anigu wax aniga ee anfaca oo aan u arko anigu inuu anfacayo oo anigu aan ku dhaqmahayo waxaan ahayna ummadda u sheegi mahayo. فيديوغي كوباد سيدا إن شاقي وحيالة بدن ومهمة بأدونك كتشرا والربا إن لا يسو شاقو ليسقاسيو لقو وضح الله وحالي ساقي فائديو فيديوغان مقرنا هاي انتو دار لأكان دونو لكن waxaa isku dayayaa inaan soo gaabiyo oo aan sheego waxyaalo muhiim ah waqti yar baan waxaan rabaa inaan waxyaalo muhiim ah ku sheego cajalado badan baan rabaa inaan iska daba keeno oo wixii anigu faa'iido ii leh naftayda marka koobaad marka labaadna ummadda faa'iido u leh. waxyaalo badan baa laga hadli karaa oo jira waxyaalo waa muhiim waxyaalo shakhsi ahaan bay saameynayaan waxyaalana waxay saameynayaan ummadda dhammaantood bay saameynaysaa aniguna ummaddan ka mid ahay marka ummadda oo dhan waxa saameynaya anigana waa ay saameynayaan. mar dhaweyd waxa badanaa xanuunka igu haya wax aniga shakhsiyan ah ma aha oo aniga ihaya ma aha wax iguma hayaan dib iguma hayaan murugo iguma hayaan laakiin waxa murugo igu haya waxa ummadda haysta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhibaatada haysa ya igu murugada igu badan taas ay keenta waxa ugu badan waan ka xumaado waa waxa ummad ahaan Soomaali ahaan jamac ahaan annagoo dhan wax na wada haysta yaa waxa iiga xanuun badan tahay wax aniga shakhsi ahaan goonida ii haya. hadda abaar dhan caraan la joogi waayay fiidiyogan waxa igu kalifay khaladaadka badan oo aan arko oo bulshada ka dhex dhaca ama si ay ugu mucaamilayaan ha ahaado ama wax ay shisheeye ku hayo ha ahaado. hadda kolley Soomaali baa iri Soomaali hadda iri waxa kamida Djibouti waa dad Soomaaliya newska aad baan la socdaa wararka gaalada aad baan u akhriyaa newsyadooda wax kaste bugaagtooda aad baan la socdaa arrimaha ay rabaan inay bulshooyinka ku wadaan iyo waxyaalaha ay dadka ka damacsan yihiin waa u dhabagalaa su'aalo badan baa iska weydiiyaa waxyaalo badan hadda jawaabahoodii dhan badana waa soo helay. hadda midda caawa marka aan rabay inaan ka hadlo waxa weeyaan horta shisheeye wuxuu isku dayaa waliba dadka reer Yurub waxa isku dayaan inay dadka hoggaamiyaan oo ay ku hoggaamiyaan waxa ayaga goonida ah oo danta ugu jirto wax ayaga danta ugu jirto waxay isaga ka dhigayaan in adiga dan ku hayaan laakiin dantooda ay wataan waxayna adiga ku isticmaalahayaan dantooda adigu waxa isleedahay dantaada wadataa dantaada u ordaysaa laakiin adiga u eg inaad dantaada u socoti oo adiga ay ka tahay dantaada
fusho iyo ayagu waxay ka fakarayaan steepkaas mid ka sii durugsan oo ah inaa adiga laysu kaa isticmaalo adiga aad dantaadii aad u malaysay toodii bay waxa kaaga dhigayaan dan. Hadda waxaa dhacay ayaan dhaweyd waddanka Djibouti maxaa la dhahaa waxaa dhacday waa la iska ogyahay taariikhda ninka la socda waxaa haystay Faransiiska iyo Mareykanka iyo inta isku iyo Ingiriiska iyo inta isku xulafadaada haysatay oo ay u tahay meel ciidanka ay maaragtay ay ciidankoodu degan yahay oo ay ka maamulaan meesha Yemen iyo Djibouti ay isagu soo dhow yihiin oo laga kontrooli karo badaha wax isaga goosho dhan badda Hindiya iyo reer Yurub meesha adduunka oo dhan isku xirta meeshaas weeye. halkaas ciidankooda Djibouti waxay awalba Soomaaliya uga goosteen inay ayagu dantooda goonida ah ku ilaashtaan ma aha inay Djibouti rabaan oo jecel yihiin inay shacabka saan rabaan ma aha no waa dantooda ayaga goonida u ah baa Soomaaliya looga sooco oo leeyahay okay Soomaaliya kamid noqon maysaan ama loo keenay maxaa la dhahaa ra'yigu basaas ku yimid inay gooni noqdaan sababtu ay tahay in la isticmaalo oo meesha laga kontrolo. sanadkii waxa bayskaas Mareykanka iyo Faransiisku baysaska waxa ka bixin jireen 63 milyan 63 milyan bay sanadkii siin jireen Djibouti oo meesha uga kireysan jireen ciidamo kale oo ayaga ka soo horjeeda ama dan kala wada ma ogolaan. Djibouti madax banaani dusha wax Faransiisku 14 wadan buu gumeystay Afrika 14 wadan xataa haduu yiri xorriyad baa leedihiin xorriyad ma jirto waa xorriyad uu gadaalka maamulayo dadkan asaga wuxuu u yahay asaga maamulaya dadka wadanka maamulaya gumeysiga hadda uu isbedelay adduunka intay tagaan dadka gumeysan jiray sidii maxaa la dhahaa dagaalkii labaad adduunka wixii ka horeeyay waxa weeyaan ayaga duuli jiray ayaga dadka gacantooda ku maamuli jiray ayaga meesha joogi jiray way ilbixaan way iska daayeen hadda waxay rabaan in ayagu ay maamulaan ninka wadanka maamulaya iyo maamulayaan wadankana asaga u maamulaya marka dulaal buu u yahay ninka meesha madaxda uga ah dulaal buu u yahay wuxuu u shaqeynayaa ayaga wadanka ayagu asagay gumeysanayaan isaguna shacabku gumeysanaya saas adduunku u shaqeeyaa. marka waxaa dhacday ayaan dhaweyd waqti badan buu haystay Ismaaciil Cumar Geelle waxa u maleynayaa madaxweynaha Djibouti wuxuu haystay 91 ilaa hadda waxa weeyaan asaga iska meesha kale taliya ka ahaa asaga iska haystay gaaladana way ku ogaayeen dantoodu waday juuq uma oran way iska meesha way ku hayeen ayaga ku hayay ay faa'iido ku qabeen marka ayaga ku hayay ayaan dhaweyd waxa dhacday in uu ka kireeyay sidii nin madax banaan oo kale iska dhigay wuxuu ka kireeyay meel ciidamadu deganaayeen Ingiriiska iyo maxaa la Faransiiska miya mise Mareykanka laba base buu lahaa base kamid wuxuu ka kireeyay base ka guureen wuxuu ka kireeyay Chinese-kana ayaga waxa meesha kuwan xulafada reer galbeedku ayaga waxa rabaan meesha inay haystaan in lala wadaago oo lala maxaa la isticmaalo ma rabaan kaligooda isu raba waxa Chinese-kii buu ka kireeyay meel China iyo xulafa ma aha way iska soo horjeedaan laba xoog oo tartamaya adduunka ku tartamaya way markuu ka kireeyay waxa weeyaan maysan ogeyn Faransiiska iyo xulafadiisa maysan ogeyn waxay tageen sanad kasta marka ciidamada la soo dabaaldegay ciidamada markay dabaaldegayaan oo la soo bandhigayo ciidamada wadanka waxa taga sirdoonada taga marka sirdoon kamid ah
kuwa reer galbeedka yaa waxay arkeen taangi lagu soo sameeyey China oo ciidanku isticmaalayo Djibouti ciidanka Djibouti isticmaalayo nimanka halkaas waxay dhaheen okay arrin baa halkan aan ogeyn baa ka jirta ninkan xulaf wuxuu la sameyn rabaa wuxuu la sameyn rabaa Chinese-ka annagana wuu naga madax banaanaan rabaa taas marnaba ayaga ma aqbalayaan marka maxay sameynayaan ayagu intay ku duuli lahaayeen waxay rabaan inay wadanka ay qalalaase ka ridaan isagana ay meesha ka tuuraan sababta kaliya oo ay uga tuurayaanna waxa weeye annagu naga madax banaanaaday iskiisa u tashtay taasna ma rabno inay suurta gasho ninkani markaste waa inuu annagana hoos joogo waa in uusan wadankuna horumar marin oo qofna uusan wadankana iskiisa u taagnaan way macnaha marka asagoo ilaa 20 sano ku dhawaad ama haddaysa ka badnayn wadanka haystay oo uu ku haystay kaliya taliyanimo hadda oo uu dantooda waday hadda waxay sameynayaan waxay dhaheen okay hadduu kaliya taliye yahay oo annaga noo shaqeynaayo waa rabnaa laakiin hadduu kaliya taliye yahay ama lagu soo doortay si kastoo nadiifa uu dantayada wadin ma soconayso maxay sameynayaan marka waxay isaga dhigayaan nin dad ka soo horjeeda ninkan oo khaladaadkiisa shacabka u muujinaya oo maaragtay leeyahay xumaantiisa banaanka soo dhigayaan dadkay ku dirayaan shacabka ku kacayaan shacabku ma oga maxaa la dhahaa sababta gaaladu ay u rabaan inay ninkan ay meesha uga tuuraan waa dantoodii buu wadaa dantoodii markuu wado ninkii waxaa looga dhigayaa inuu ka soo horjeedo dantooda oo uu xumeeyo baa looga dhigayaa haddii uu xumaynayo oo dantooda uu wadana maxay ka dhigayaan hadduu xun yahay oo danta gaalada uu wado waxay ka dhigayaan nin fiican marka markasta shacabka waxa danta ugu jirto maaha wax kale ay ugu sameynayaan marka hadda maxay sameeyeen hadda waxay sameeyeen waxay ku wadaan doorasho soo dhow wadanka Djibouti shacabka bay rabaan inay isku diraan waxaan aad ugu faraxsanahay dadka Djibouti inay af Soomaaliga garanayaan inaan aniguna aan wax u sheegi karo oo aan maaragtay isku af ku hadli karno oo aniga aan la xiriiri karo yaan aad ugu yaan taasaan ku faraxsanahay oo wax u sheegi karo oo waxa runta oo jira aan u sheegi karo marka walaalahayga Djibouti waxaa samaysaan yaa la isku keendirin nin aan dantiina wadin yuusa iska dhigin inuu dantiina wado waxa weeyaan waxaad noqon doontaan haddii aad qalalaase ridaan waxaad noqon doontaan sida Syria oo kale Syria laftiisa waxa weeyaan dadkii shacabka ku direen ayagiiba isburburinaya hadda ninba walaalkiis ninba ninka kale walaalkiisu dilayaa waxaad samaysaan sida xalku idinku jiro ogaada dadkan shisheeyuhu inuusan dantiina wadin waxa ay idin sheegaan oo ay saga kindhigayaan dad wanaagiina ma wadaan idinku waxaad maaragtay yaan idinka dhaadhicinin gaalada ha dhegaysanina BBC-da ha dhegaysanina maxaa la dhahaa AFB oo ay leedahay waa wararka kuwa maaragtay warfaafiya oo Faransiiska ha dhegaysanina idinka islayn doona nimankan dantiina ma wadaan sidii nabad ah haddii aad Umar Geelle aad u bedelaysaan u bedela maxaa la dhahaa haddii ina bedeli karina markasta waxa isku daydaan dantiina aqoonsada gaalada laftooda marka doorashooyinka dhaco waxa weeyaan qof baa guuleysta qofna waa laga raayaa marka kan laga raayo ma dhaho hubka ha la qaato ha la dagaalamo dhaho ha dagaalanina hub ha qaadanina waxa weeyaan ninkaas waqti ha loo qabto maxaa la waqtigiisana markuu dhamaado ha iska tago kama fiicnidin wadamada reer galbeedka ah oo nin le anaa meesha iska haysanaya miyuusan jirin waxa weeyaan wadankiina ilaashada dadkiina ilaashada
هدا عد بربرينيسان إذنكم بإسبربرينيا هإسبربرينينا وحدنا إذن كتير ملأ waxaa lagu soo sameeyay Soomaaliya lagu soo sameeyay waxa weeyaan siyaad barre ayaga dadka ku diray dadkii ka soo horjeeday waxay isaga dhigayeen in ay wanaag u horseedi doonaan wanaagna uma horseedin waa la arkaa inaysan waxba soo kordhin qof kastoo hadda Soomaaliyeed oo meel kasta jooga waxa weeyaan maxaa la dhahaa wuxuu leeyahay ilaa yaa siyaad barre noo soo celiyay siyaad barriya ay ka dagaalamayeen oo ay maxaa la dhahaa ay diidanayeen balaayo ka daran baa la arkay idin kama maqna maxaa la dhahaa warka Soomaaliya ma war li idin caalamka dhan baa ka ceebaysan yihiin Soomaali waa ka ceebaysanahay ana xataa ugu dar wuxuu dhan Soomaali marka adduunka lagu dhaho Soomaaliyan ka imid qof kasta uu ka carray oo kaasi jeesanaya gaal iyo islaam muslim maxaa la dhahaa waxaasna waa dhibaatooyin badan oo shisheeye ku hayo waa gaala ku haysa waa dadkii baa la isku diray maxaa la dhahaa waxaan anigu hadda idinka digayo oo Djibouti aan uga digayo waxa weeyaan wax Soomaaliya lagu soo sameeyay weeye waa wax Liibiya lagu soo sameeyay waa wax lagu soo sameeyay maxaa la dhahaa Syria waa wadamo ka hor oo ka badan waxa lagu soo sameeyay Iran baa lagu soo sameeyay 1979kii waxyaalaha idin sheegayo dhan waxa weeyaan nimankani way yaqaanaan sida ay adduunka u qorsheeyaan hadda waxaan dhageysanahay dacaayado badan bay ku hayaan hadda Djibouti dacaayadahaas waxa kamid ah maxaa la dhahaa in ay xireen niman BBC-da ka socda in uu xiray Ismaaciil Cumar Geelle qaybtaas oo dhan waxa loo faafinayaa oo kaliya waa maxaa la dhahaa muxuu annaga nooga madax banaanaaday oo iskiisa ugu tashanaya oo wadankiisa dadkiisa wax u wanaagsan muxuu u samaynayaa weey Soomaaliyay meel kasta aad joogtaan luqad dhinaca aritaan ka imaada waxa weeyaan nin shisheeye ah dantiina ma wado ana idin sheegaya ama Djibouti joog ama Muqdisho joog ama joog Garowe joog ama Gaarisa joog ama Jigjiga joog Soomaali hadaa tahay dantaada uguma in wax dan uguma jirto ina ficnaati gaalada iyo shisheeyaha uguma jirto adaa waxa taqaanaa sidii aad dantaada aad u ilaashan lahayd adaa ganay adaa laga rabaa nin dantaada ku ilaalinaya male ana idin sheegay hadeer waxba aniga wax kulay mana qarsoona hadda maalin kaste kuwan looga yeerayo maalinba meel oo la leeyahay maxaa la dhahaa aniga gobolkan aan waxaan u ahay madax baan u ahay gobol kala la sameeynayaa oo ninkan sidaan weeye oo gobolkan uu matala oo ninkan ma rabo war waxaas iska ilaawa cid idin kala jecel male cid idin kala taqaana male halka kaliya oo wax oo la rabo waxa weeye in la idin burburiyo waa la idin burburiyay waqti badan bay sii socon doontaa wareerkan waa lagu jiri doonaa haddii aan qof kaste uusan intuu istaago uusan fakirin oo asagu markaas meesha uu dhaqaaqi lahaa hadduusan garan gaal waxba idin sheegi maayo ama ha cadaado ama ha madoobaado dantiina see ku dhici kartaa inaad dantiina ka sugtaan qof kale oo shisheeye ah see ku dhici kartaa aqligaas sideebuu aqligaas maskaxdiina ugu soo dhici karaa hadda waqti badan baa dhibaato lagu jiray war dhibaatada la iska daaya war Soomaaliya dhibaatada iska daaya war qof kasto war waxaan la idin sheegayo goboladan cusub oo la idin sheegayo oo maalinba meel laga dhisayo wax ka jira male war waxaan lugooyo ka ahayn male war nin kasto iska daa aniga waxa calamadan badan oo la yaacay iska daaya war anigu ree hebel baan ahay iyo anigu waxaan ka soo jeedaa gobolaan hebelaan war iska daaya war laankan ma shaqeynayo war laankan waxba idima aha war ha iska daaya war dadow yaan la isku wareerin war niyada naga disheen intayadii aamusnayd oo aan waxba sheegi jirin oo aamusnayd niyada naga disheen war iska daaya waxaan war khaatumo laan ma jirto waxaas waa iska ilaawa war Somaliland war waxaan laankan iska daaya laba tuug saddex tuug baa wax ku cunaya saddex tuug baa wax ku cunaya ninkaas meesha ordaya kaliya baa baris ka soo galaya intiina kale waad ku baaba'aysaan wixiina u sacabatumaya war walaalka haduu yahay la hadal war kaas u ordaya war halada war sidan arinta laga joojiyo war boqolaal goora la hadlay
waxaa idinla hadlay nin gabyoo dhan baa idinla hadlay nin waxgaradoo dhan baa idinla hadlay war iska daaya waxaan war ilaahay ma taqaanaan war waxaan iska daaya war khaatumaland idinma anfacayso war maxaa Somaliland idinma anfacayso war Puntland idinma anfacayso war Jubaland idinma anfacayso war Huhaland hala iska daayo war Lugooyaland hala iska daayo war wax idin war waxa weeyaan midka war waxa kuugu sokeeya ka cararaysi baa waxa kuugu sokeeya asaga asxaan iyo maceen kuugu sokeeya war iska daaya war dadkan anu idin oran mahayo Soomaali waa walaalo iyo waxaas iyo war dantiinu kuma jirto war shakhsi dantiisu kuma jiro war waxaan iska daaya war waad ku halaagsamaysaan war waad ku halaagsanteen war haddii aad maaragtay aad wanaag rabtaan gaalada iska bixiya war waxaad tirahdaan ordan naga taga wax annaga dantayada u tashanayna waa ogahay idinma deynahayaan oo xataa haddii idinku dantiina u tashataan waxa weeyaan haddii khiyaano ay wax ku waayaan way toos bay idin soo weerarayaan ciidamay keenayaan dacaayaday furayaan qolaan waxay leeyihiin samaan falaynaa bay leeyihiin sama falayaal baan nahay ayagoo oo raba inay dhibkiina ka taliyaan war hal iska daayo war aliis afkiina ka adkaada war waxaan dadka qabiilada kale oo aad caynaysaan joojiya war waxaan war wareerkan hal iska daayo war maxaa idinku dhacay war ummad diin baad sheegataan diintiina maxaa ka dhaba maxay tahay diin islaam baan qof kasta wuxuu ku faanaa muslim baan ahay misna waxyaalaha ugu daran buu sameeyaa war muslimnimada afka la iska sheegta miya war ma iska daysaan waxaan war waa ku halaagsanteen war idinka iska daaya ciyaalka maanta dhalanaya ya ku halaagaya ya ku halaagsamaya war meel kastoo joogtaan war iska daaya waxaan war haddii aad banaanka uga soo baxdaan goboladaas ninka cadaanka maalin kasta idinku imaanayo oo idin isu oo maaragtay iska dhigaya inuu wanaagiina wado oo maxaa la dhahaa inuu wax idin sheegay wax idin taro ninka iska dhigaya oo maalin kasta aad gobolada ku soo dhaweynaysaan war wanaagiina ma wado war lugooyadiinu wadaa wuxuu rabaa in uusan abidkin inina degin buu rabaa abidkin inta nooshin inina degin inaad dhamaataan in caruurtiina ay macluul u dhimato in ay qaxootiga xiriyaha qaxootiga inay saa ugu raagaan ilaa 1991 ka xiriyo qaxootiga furan war dadkiina wax u sheega war nin kasto ninka kale wax gaarsii war hala isu sheego war maskaxdiina isticmaala war qof kasto qofka caawin karta caawi qofka gacan qaban karti gacan qabo kii aadan gacan qaban karin ka aamus afkaaga iyo adinkaaga laga nabad helo war qabiiladana caynaysaan joojiya war waxaan u dabaaldegaysaan oo aad leedihiin Hebeland war waxaas ma shaqeynayaan war iska joojiya war ilaahay ma taqaanaan war ilaahay aniga waxa weeyaan waa yaab ummadoo dhan baa wada yaaban qofba meelba xal ka raadinaya xalku sidaas ma aha dadka waxa weeyaan ayagana waxay idin soo xulayaan hadda waxaan meelaha wareegaya oo madax baan nahay waa dadka ugu liitay bay u soo xuleen gaaladu ayaga gaalada meesha keensatay qofna ha taageerin iska aamus adiga meeshaada mar wadada ka horeysa mar qof ha taageerin qof la taageera male maanta buuq iyo qayla wadaan waxaana wax ka jira male qof kasto dantaada iyo meesha ka horeysa fiiri oo hore u soco maxaa la dhahaa hebel iyo waxaan dadkan gaala soo xulatay waxayna rabaan lugooyadiina rabaan waxay rabaan idin ku gumaystaan bay rabaan inay ayagu kuwaan aad leedihiin madax bay noo yihiin inay dulli idin horseedaan bay rabaan war dulli bay idin horseedeen war wax hadda wax hore tagay wax ku arag wixii hore tagay wax ku arag gaal hadduu rabo inuu idin caawiyo ama nin cadaan hadduu rabo inuu idin caawiyo ilaa 1988 baad silcsameeyeen war muxuu idin caawin waayay maxay tacaawinaada uu hadda kow uu idin raadinaya maxay tahay war ma waxa rabtaan 30 sano oo kale ama 35 sano oo kale oo burbur ah inaa ku sii noolaataan miyaa rabtaan war ma waxaad war miina arkeen meesha ka timaadeen miina arkin war heerkan meesha ku soo gaarteen miina arkin war ilaahay miina aqoon war joojiyo waxaan ay sameeynaysan waxaan waxa weeyaan gaaladu magaca Soomaaliyeed way neceb yihiin maxaa la dhahaa muslimkana gaaladu ma jecla haddii gaal uu wanaag sheegayo aad gaal wanaagsan tahay ma diintiisa qaadati maxaa u leedahay marna diintiisa maarta gaalku ma fiicna aad afka uga leedihiin
aad dhaqankiisa iyo wadadu falana maxaad u raacaysaan war haddaa u malaynaysan gaaladu inay fiican tahay haddee wanaagsan tahay haddee dadka ugu wanaagsan yihiin maa diintooda qaadataan haddiina diintooda qaadanayna iyo dhaqankooda maad iska daysaan oo dabaraacooda iyo waxaa maa iska daysaan war wixii muslin ahow dhe muslim baan ahay wixii muslin aan ahaynowna dhaha muslim ma nihin ha isqarinina dadka maaragtay ha isku qarinina ha iska dhiganina ha sheeganina diini ina lahayn ha sheeganina waa la isku wareerahayaa dad badan oo waxaan u malaynahayaa dhaha muslim baan ahay muslim ma aha saasaan filahayaa aniga sababtuna waxaa weeyaan waxay samey waa dad waa laga dareemayaa camalka hadalka aad tiraahdi iyo camalka aad samaysi camalkaa samaysi baa ka muhiimsan marka aniga waa idiin sheegahayaa ninkii dhahaa madax waaba warmiye carabkiina beenta miyuuna dhadhamin beentu idiinma dhadhamta miya horta waa yaabanahaye war ilaahay ka baqa ninkii diintiisa haysanaya anigu maanta idin wacdin maayo diintan haysta malihi idin oran maayo idinka idin taala diintiina laakiin qof kasto waxa anfacaya qof kaste wax anfacaya ha sameeyo qof kaste wixii anfacaya ha sameeyo yaan la islu goynin yaan la iswareerinin yaan la isxasdin yaan la islu goynin ummadda waxaan iska daaya war waxaan horumar idin keeni maayo war intaa qof leedahay dhibaatee adigaas dhibaateynaya war waxaan iska daaya war anaa war maxaa hadal waa daalay war iska daaya war waxaan daa war meel kastoo joogtay war haddii aad iga dhegaysanayso oo warkaygu ku soo gaaro meel kasta oo adduunka ka mid ah waxa weeyaan hadalkan faafi qof kaste waxbuu bedeli karaa anigu adiga haddaa i maqashi oo hadalka wanaagsan faafisi dad kale ku sii dhageysanaya 100 goor buu jibaarmanayaa hadalkan wanaaga oo sheegti malaayiin goor buu yu islaban laabaya waxa arkaysa ummadii oo dhan oo iswada bedeshay ba arkaysa oo wanaaga loo kala tartamaya arkaysa war wanaaga faafiya war joojiya dhibaatada joojiya war haddii aad muslim tahay ilaahay ka baq haddii aadan muslim ahayna waxa weeyaan wanaagu waxa weeyaan markasta adu ku anfacaya markasta qof anfacaya waliga qof in aad caawisi maaha qofna ha dhibaataynin ummadda ilaahay ha dhibaataynin hala joojiyo xumaanta loo kala tartamayo hala joojiyo oo ninba ninka kale ugu hormarayo hala joojiyo waxa weeyaan dad baan nahay isku mid baan nahay meel kasto aad joogti magacaaga ana imetelaysa anigu adan ku metelaya aniga iyo dadka kale dib ha u abuurinina war qof meel magaca Soomaaliyeed waa la wada huwan yahay war hala joojiyo war dhibaatada hala joojiyo war yaan balaayo la soo horseedin waxa adii aad samaysi oo dhibka geysatay anu isaameynaya dhibka anigu aan geysto adu ku saameynaya waxa weeyaan hala joojiyo waxaan ummad ilaahay hadaa tihiin waxa waa yaabanahay hadalkayga waxa weeyaan ma soo koomahayo wuxuu socon karaa intaan qaylinayo aan wax sheegayo intaas oo saacad ma rabo inaad joojiyaba waxa weeyaan waa dhibkan haystaa ka weyn dhibkan haystaa la soo koobi karin war dadkan isku leynaya maalin kaste oo maaragtay leeyahay oo loo sameysanayo marmarsiyaha hala daayo war intii la xalin karo in aan dhib imaan ama dagaal imaan ama dhiig imaan meel kaste iyo mar kaste ilaahow may 1,000 sano ka soo wareegto may 100 sano ka soo wareegto may 50 sano ka soo wareegto may 20 sano ka soo wareegto may 10 sano ka soo wareegto war hala joojiyo war inta wax la badbaadin kara hala badbaadiyo inta wax la hagaajin kara hala hagaajiyo waa ogahay dadka Soomaalida waa dad wanaagsan waa dad isjecel qofkii waxa weeyaan waa dad islaama oo isu gargaara meel kasto joogan waxaan ogahay meel kasto aad tagtay maanta hadii aad ka tagtay koonfur hadaa ka tagtay waqooyi tagtay ama waqooyi ka tagtay oo bari tagtay ama bari tagtay oo galbeed tagtay meel kasto waa lagu caawinaya Soomaalina lagu caawinaya walaalnimo lagu caawinaya waa ogahay taas hadii qurbaha la isku arko waa la iscaawiya dadku waa walaalo war maxaa dhibkan muxuu yahay war dhibkan war shisheeyeen ka faa'iidin war already waa naga faa'iiday war ciyaalkayaga iyo ilmaha yararka iyo masaakiinta yeesan baabi'in war nin qaata jeeg la siiyo oo loo qoro jeeg ama wax qiyaamaya ama maaragtay musuq maasuq inuu wax isdaba mariyo ninkaas
waxaa laga yaabaa inuu wax yar jeeg yar inuu helo inuu $100,000 helo inuu 1 milyan helo inuu laakiin waxaa ku baaba'aya ummad badan baa ku baaba'aysa war waxaan iska daaya war hadalkayga intaas ku soo koobayaa wanaaga faafi waxa weeyaan hadal kasta oo aad tiraahdi ama ha xumaado ama ha samaado uu 2 jeer jibaarmahayaa uu 10 jeer jibaarmahayaa isweydii ma waxaa rabtaa oo danta kugu jirtaa ama danta guud ku jirtaa ama danta ummadda ku jirtaa ma hadal xun oo aad tiri oo 10 jeer jibaarma ba wanaagu ku jiraa iyo faa'iidadu ku jirtaa mise waxa faa'iidadu ku jirtaa hadal wanaagsan adigaa leh waxaad faafinaysid adigaa leh haddii aad u qasdidid inaad xumaan faafisid waxa weeyaan waxaad hor kacday dhibaata ummadda u hor kacday dhibaata bulshada u hor kacday haddii rabtid inaad wanaag aad faafisina wanaag baad u hor kacday iska daa adiga iyo maaragtay wax kale waxaad dadka kale ku tiraahdi adiga iyo inta agagaarkaaga iyo familkaaga ku soo noqonaysaa kaama tagayo waxa xun oo aad sameysay ama waxa wanaagsan oo aad sameysay ka tagi mahayaan waxay tagayaan xaga qofkaas xaga jooga u tagayaan waa kuwa soo laabto qofkaasna wixii buu sameeynaya adigu kugu soo laabanaya inta hareerahaaga buu ku soo laabanaya wuxuu ku soo laabanaya walaalaha familkaaga hooyooyinkiin caruurtaa ka tagtaan ba waxaan ku soo laabanayaan wax bilaash ma jiraan adduunka wax bilaash ma jiraan wax kaste waxa weeyaan waa muhiim wax kaste diiwaan waxa weeyaan way soo laabanayaan way joogayaan wax kaste intaas idin kaga baxay khayr baad idin rajaynayaa